12 ruux ayaa ku geeriyootay doon tahriib ah taasoo ka baxday xeebaha Turkiga kuna sii jeeday dalka Greega. Dadka geeriyooday 4 ka mid ah waxay ahaayeen Soomaali. Dadaal ay si wada jir ah u sameeyeen safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu guuleystay in dadkaasi la aaso. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Saleebaan Kaarshe oo arintan dadaal ku bixiyay ayaa warbaahinta la hadlay. waxaan magaalada Bodrum waxaan u imi anigoo ka socda safaaradda Soomaaliya ee Turkiga Ankara inaan ka qayb qaadano hawsha naga aadan saddexda dhalinyarada ee ku geeriyooday badda Bodrum Allah naxariisto oo kala Salaad Abdi Xasan iyo Maxamed Bile Ile iyo gabadh leeyahay Xamdi Axmed Maxamed waxaan leenahay horta koowalan waxaan dirnaa tacsi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahu naxariisto halkii ilaahay ugu talagalay ku dhinteen qadar Allah ma shaa facal waan uga tacsiinaa gaar ahaan eheladooda familiyadooda khaasatan labada wiil waxa la sheegay inay reer lahaayeen xasal lahaayeen oo ay muqdisho jiraan waa geeri xanuun badan waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlaya magaca safaaradda iyo magaca Soomaaliya waxaan leenahay waa geeri xanuun badan ilaahu naxariisto runtii hawshii aanu nimi ka safaradaan aanu nimi Bodrum runtii waa mas'uuliyadda naga saaran ka safaradaan mas'uuliyadda naga saaran aan mar walba inaan dhinac taagnano jaaliyadda Soomaaliyeed waddanka ku nool iyo ummadda Soomaaliyeed iyo danaha Soomaaliyeed marka runtii oo mas'uuliyad naga aadan bahayd xanaan goor ku imi waan hawsheeda waa dhamaystirnay laba wiil waa la qaaday oo hadda waxa loo qaaday Istanbul bal lagu aasi doona insha Allah taala Salaad Abdi Xasan iyo Maxamed Bile Ile labada dhalinyarada waa la qaaday waxaan lagu aasi doonaa Istanbul insha Allah taala eheladooda oo iimaanay codsaday Xamdi Axmed Maxamedna walaalada ayaa qayb kamid ah ayaa yimi oo hadda waan sugayaa waxaan ku suganahay halkii ay yaaleen meedku waan sugayaa way soo socdaan runtii iyagana waxaan rajaynayaa inaan ku wareejino wixii processka dhan waa dhamaystiray in la soo wareego meedka waa la soo wareegnay waana la qaaday labada wiil gabadhan insha Allah taala isku doonaa waana la wareegi doonaa runtii waa geeri xanuun badan runtii mar walba waxaan ku celinayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo naxariisto waana ku mahadsan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ka qayb qaatay hawshan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana mas'uuliyad la wada leeyahay wadar mas'uuliyadeed ummadda Soomaaliyeedna waxay ku fiican tahay ka duwan tahay wadada garab taagan mar walba istaakuleeya waana runtii arrin aad wanaagsan oo qodeysho mudan maahan markii ugu horeysay oo dad Soomaaliyeed oo ay ku geeriyoodaan badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Bodrum.